بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد وبرنامج كيني فسر كرويوينكا وتكلا سعوتين جنالكا تولموني برودكشن برنامج كينا مانتا وحنكو سقادونا إن شاء الله رؤية الملابس في المنام أراتيدا داركا المنامكا لو أركو فسركا إقادنا سؤال فسر دونا إن شاء الله دارك أراتيديسو وكلا قدسين يهي وحالو كلا قادايا دار عصب iyo dhar hore waxaa kaloo kala qaadaya dadka arkaayo raggii hablihii kuwa guursaday kuwa aan guursan kuwa xaamilada ah intaasaa loo kala qaadayaa wuxuu ku leeyahay ibnu siriin caleyh raxmatullah taabiciga weyn ee sheikhu lmufasiriin alaxlaam ah aratida labisashada dharka cusub oo qofku arka isagoo dhar cusub xiranayo waxaa lagu fasirayaa azawaaj guur qofka guursanayo ama in la soo doonayo ama inuu nikaax xaadina qofkaas oo la nikaaxsanayo ama kanansanayo maasha allah aratida dharka oo cusub ayaa ku fasirnay azawaaj haddii qofkii gabadhii aragto weli aan guursan ee ku riyooto dhar cusub mara cusub iyadoo xiranayso ee aragto waa gabadh weli aan guursan hadday ku riyooto iyadoo xiranayso mara cusub waxaa lagu leeyahay waxaa lagu fasirayaa calaa xubin jadiid jacayl cusub ayaa lagu fasirayaa dharka oo nadiifka ah xirashadiisu aragtidiisu waa bushraa waa bishaaro waxay tusinaysaa cala sixa wa sacaada caafimaad iyo liibaan iyo farxad ayay tusinaysaa hadduu qof u arko isagoo xiranayo dhar nadiif ah aan wasakh lahayn maasha allah dharka cad ama almalaabis albaydaa dharka cad xirashadiisu waa cala asacaada waalfaraj maasha allah waalfarax waa sacaado iyo farxad dharka cad aad u wanaagsan yahay haddii qof oo ku riyoodo dhar cadaan hadduu ku riyoodo waxaa lagu fasirayaa liibaan guul iyo farxad ayaa lagu fasirayaa dharka wasakda ah ee wasakhaysan cala albu'si waxaa lagu fasirayaa baas lagu fasirayaa iyo qaswat alayaam iyo maalmo adag oo qofkaas soo marayo dharka qurunka ee wasakda ah yaa saasa lagu fasiray dharka oo labiska xirashadiisa oo almalaabis ashurda labiska booliska dadka waa kala labis arday labis gooni leeyihiin uniform leeyihiin booliska sidoo kale dhar gooni leeyahay wuxuu sinaya kule qofkaas inuu agtiisa yahay awood uu leeyahay laakiin uusan garanin isagu haye soo iibsashada dharkii marka haddii qof ku riyoodo soo iibsanayo dhar oo soo gadanayo maxaa lagu fasirayaa haddii qofku u arko isagoo soo iibsanayo dhar cusub suuqa tegey carooyinkii tegey ama bacadlihii wuxuu arkay isagoo dhar cusub soo iibsanayo kaas waxaa lagu fasiraya in qofkaas uu shaqo cusub helayo ama nolol cusub qofka u bilaabanayo bisifa caama si guud markuu hadlayo ama ha guursado ama shaqo cusub ha helo ay si guud nolol cusub qofkaas gelayaa taas lagu fasirayaa soo iibsashada dhar cusub maasha allah haddii qofka u arko isagoo iibinayo dhar cusub iibsanayo fa innahu sawfa yatazawaj oo guursan doonaa lu yidhi qofkaas guursan doonaa maasha allah dharkiisii iyo noloshiisii kulliyaa ayaa isbedelayo dharkii hore marka almalaabis aljadiida halkaas oga baxayna dharka cusub almalaabis alqadiima dharkii hore ee qadiimka ah ayaanu gudagelaynaa insha allah qofka hadduu arko maro qadiim ah oo ku riyoodo laakiin nadiif ah oo nidaamsan waa maro hore qadiim waaye hore u lahaa haye laakiin nadiif ah wasakh ma ah waana maro nidaamsan oo laalaaban oo xeraysan kaas wuxuu tusinayaa in xiriirkii qofkan iyo qof kale kala dhexeeyey oo go-ay inuu soo laaban doono xiriir qof kale kala dhexeeyey oo go-ay ayaa soo laaban doono marka aragtiroodaas ogow marka hadduu jiro qof xiriir kala dhexeeyey ee go-ay xiriirkaa soo laaban doono taas ogow maasha allah dharka qadiimka ah laakiin jajeexan aan wanaagsanayn haddii qofku ku riyoodo fa inaha tadullu cala almowt walmarad waxay tusinaysaa geeri
iyo jirid tusinaysa ama jirid tusinaysaa oo qof se u dhow ama qof se casiis agtiisa ka ah agtiisa qaali ka ah ina geeri ku dhacayso ama uu jiro doono jirada la oqaa jirada roon jiro la ka ah masha Allah ama malaabis almeyd fi lmanaam dharka meydka maxaa ka mid ah karfatiga ka mid waxaas iyo dharka geerida haddii dharka meydka qofka ku riyoodo waxaa lagu fasirayaa tadul cala khayr liahli in ehelkiisa qofka khayr uu helayo masha Allah dharka go-an qofka ku riyoodo dharka go-an haddii qofka uu ku riyoodo manaam uu ku arko waxaa lagu fasirayaa goon isagoo ehelkiisii kala dhex gashay cadaawad iyo khusuuma si ehelkiisa kala dhex gashay ayaa lagu fasirayaa dhar oo qadiim ah laakiin oo baaliyoobay aad duluf dhar duluf ah dhahan annaga qadiim ah oo baaliyoobay haddii qofka uu ku riyoodo fa innaha tadulu cala albu'si baasay tusinaysaa ma wanaagsano ruyo wanaagsan ma ahan gabadh weli aan guursano marka aan gudgelayna insha Allah haddii ku riyooto dhar ee aragto manaam ku aragto guuruu tusinaya ama gaaris in lasoo dooni doono ayaa lagu fasirayaa masha Allah gaar ahaan haddii dharka uu yahay dhar cadaan hadduu yahay haddii gabadh weli aan guursan dhar cadaan ay ku riyooto gabadhaas waa la guursan doonaa kol dhow aan lasoo dooni doonaa bidnillahi albaari haddii laakiin aragtid dhar cusub iibsanayso oo gadanayso calaa tacaaruf aa lagu fasirayaa ina baranayso xiriir cusubna ee laha doonto jacayl cusub ee abuuro doonto ayaa lagu fasirayaa haddii gabadha ay ku riyooto dhar cusub soo iibsanayso masha Allah haddii laakiin ay ku hesho dhar cusub ay ku hesho ka hadiyad ahaan haddii loogu keeno oo dhar cusub hadiyad ay ku hesho wuxuu tusinayaa maxabo iyada iyo qof dharka usoo hadiyeeyey maxabo dhex mari doonto iyo kala gacayl ayaa lagu fasirayaa haddii laakiin shaksiga dharka usoo hadiyeeyey oo shaksi meyd uu yahay qof dhinta uu yahay rooyadaas waa bishaaro oo khayr kathiira khayr fara badan bishaaro u yahay iyo risqi ama maal ama camal masha Allah khusuusan haddii meydka uu yahay maxaarimteeda oo ka mid ah maxaarimteeda dadkii weysada aan ka jibin oo ka mid yahay laakiin geeriyooday ee isagoo dhar u soo hadiyeynayo waxaa lagu fasirayaa gabadhaas in khayr fara badan iyo risqi ay heli doonto iyo maal iyo camal haweeneydii la qabay haddii ku riyooto ama xamlada ahayd dhar ee ku riyooto wuxuu tusinayaa khayr iyo sica fi risqi xagga risqiga waasacnimo ay ka helaysaa waati xaaska ahayd ama urka laheede maasha Allah iyo ilmo wanaagsan mucaamalo wanaagsan ay kala dhexeeyaan haddii xaaska ay ku riyooto zawjkeeda oo dhar cusub siinaya usoo hadiyeyna haddii ku riyooto waxaa lagu fasirayaa zawjkeeda dhahnay oo dhar cusub usoo hadiyeynayo waxaa lagu fasirayaa alxamd uura qaadaysaa oo xaaskii waxay ku riyooto zawjkeeda dhar cusub siinayo usoo hadiyeynayo gabadhaas uura qaadaysaa xaaskaas uuray lahaanaysaa ilaahay idinkiis haddii haweeneyda xaamilada ah ee aragtay iyadoo iibsanayso dhar cusub oo cunug oo wiil walba u iibinayso hadday ku riyooto gabar dhalaysaa macnaa uura lahayd baa aragtay iyadoo wiil ee dhashay usoo iibinayso dhar bedelkeeda gabar dhalaysaa gabaray dhalaysaa cagsi waa saas haddii aragtay iyadoo gabar usoo iibinayso dhar wiila dhalaysaa masha Allah hadiyinta dharku waa khayr haddii aragtay adoo dhar lagu soo hadiyeynayo waa khayr lagu fasirayaa haddii qofku u arko qof usoo hadiyeynayo dhar usoo hadiyeynayo waxaa lagu fasirayaa dhar waliba oo gashanayo wuxuu arkay qofkan asoo qof dhar usoo hadiyey qof dhar kuu keenay dharka marka waa xiranaysaa adiga waa gashanaysaa waxaa lagu fasirayaa in qofka ceebtiisa asturaayo ceebtiisa asturaayo ilaa dharka cooraa lagu qariyaayo ayaa lagu fasiraa ama uu kaalmeynayo usoo kaalmo oga baahan maasha Allah haddii haweeneyda ay aragto haddii haweeneyda ay ku riyooto qof jecel oo dhar cusub siinayo qof jecel oo dhar cusub qofka ee jecleed oo dhar cusub siinayo usoo hadiyeynayo haddii ku riyooto way guursanaysaa qofkaas guursanaysaa qofkaas ayay guursanaysaa cajiib haddii qofka oo ku riyoodo qof geeriyoodo meed ah oo dhar usoo hadiyeynayo waliba dhar cusub risqi fara badan oo qofkan helaya mustaqbalka lagu fasirayaa risqi fara badan oo helaya mustaqbalka lagu fasirayaa haddii haweeneydii aragto oo xaaska ahayd waliba meed oo dhar cusub siinayo alxamd uur ayuu tusinayaa marka midabada ayaan dul mari doonaa insha Allah midaba dharka nooc cadaanka madowga casaanka jaalaha buluuga wahaakada haddii qofka uu ku riyoodo wuxuu ku leeyahay ibnu Siiriin alayhi raxmatullah
أرتيدا درك عد دليل الجمال في الدنيا والدين قروح ذا قروح الدنيا قروح دين قروح وليبا يدل إياه ما شاء الله أعمال صالحة وتصنعها درك عدانكم ما شاء الله ونكسن هاي وليبا أعمال ونكسن وصالحة وقف وضلبايو ابتغاء مرضات الله رال أنشاء إلهي وضلبايو يا لو فسر يا أرتي درك عصانك أما جدودك مذبك جدودك أما عصانك سأقرن سيدبا وحلو فسر فهو خير وبركة للرأي خير يا بركة يؤيهاي قفك أركا هديها ويني تهوى هاي لا أيجا أنت بدن نوع سقاطان لي أنت بدن أيجا جدودك قاطو أما للرجال فهي مكروهة رجلك كراهي وتهاي هاي لا من زينة الشيطان أي كمتاه الشيطان سقر حيو أي كمتاه عجيب رؤيا اللون أحمر مذبك عس رجل خير ويا ليه هدي درك أو قشنا يوصل كجيرين لكن مذبك سجود معنا خلق خير وياه هاي الثياب الصفراء درك أو معنا بربور كله وعدان يجدد مذوب من أنا هن مذوب كاس للرأي السليم بقوية هاي هدي قفك جلديسي نبتقلي أوجيه إنه تسنى ولا جيا بجري هدي قفك أجرنا هدي قفك قف حنسن أوجيه هاي درك أو بربورنا أو أركي بربور كله مقحويجا سأجرنا سيدنا مكفاجا وعلى جيا بجري تسنى سو أما إنجليز كسي زيادة سنة تسنى أما زمن در وباقص أنا هيو مرك أما مصائب همومنا تسنى مرك أدو أجو هدول درك النوع عاص وحطنا يا نوع عاص مرك أرته كوف فسران الرؤيا كما عبر الرؤيا وسيل لو فسره الرؤيا وسيل لو فسره أو لو تأويليه يعني قنا ساي أدو نك خير كلاءات هذه الرؤيا حن أتهنا هراء وصلنا يو نك بديح عنف أطف لبس كم لبس نك الرؤيا سبوا لبس ده كرؤيا ودين سين إسكيل هالي ده الرؤيا يقان وأهل أوه ورؤيا فسره يو ودي دي لكن قف كاس أسكو ودي سيد وصحن كوو فسره سيدي نقنيسا سيدا نكو دعيس اسكي لا مرك ميدبك او بربورك له مرض اي نقنيا كاس halkaas ugu bixina nooca oo madowga nooca madowga labis madow ama dhar madow qofka haduu kuriyo nooc madow iyo qof kuriyoodo khayr wa baraka lirajul khayr iyo baraka uu ninka u yahay madowga khayr iyo baraka uu ninka u yahay haweeneydan iyadana wal mar'a in i'taada البسها في الجغدة هدي لكن هوين إن مركز عادي أهد نوع مذو قادرت إن خير وياه نوع مذو قادرتي وعادي أهد خير إن وياه هاي ما هي لدى العز والخير والبركة لهما يتسنى يا خير يا بركة اللي وياه هاي صلنا تسنى إيمان تسنى يا هو جامين تسنى يا من السواد سود ولا سقطاو هو جامين تسنى يا ما شاء الله هدي لكن هوين إذا مذو سقاطا إن عادوا لهن إن كريوتو دل حزني القادم يكرب يضاق عذري يمرجو أيوتسنا حياه والعياذ بالله مركا دركا وحقونا سن مركا واسعة وعصب قفض كريوت ونظيف كأ وجسي وناكسن ما شاء الله مركا مذا بدينا هالكاس أن وجهه الناجينا دركا ما شاء الله وبشارة وعيب أرثي دركا وعوانك الدورتين هذين فسرني وعوانك الدورتين هذين فسرنا مركا فالعلنتين أرانا إن شاء الله أو لا كدوبة لا إسكسار كلي بس إسكريح بس لا إكسار مركا أرانا عوان كان ساد أقدين أو ضدك أقدر سيسين إن شاء الله تعالى هذين كان عوان هذه كالمركز الدورتان أنا كان يسوق بدون دي على إنه لكن هذه عوانكي دورتين هذا عوان كان الله فسره marka soo fasal iska ihmaal gareysaan meesha oo tagtaan si mar dam warkiin loo yeeldoono ma garanayno marka insha Allah ta'ala wada shaqeyn wacan saasana markaas ka fakareyna oo ciwaana jacasha isu gudbinayna idinka insha Allah ta'ala asxaabtu in la wadaaga janalka da ku cusub tahay subscribe dheh saana mar walba tulmeen ruuyinku fasira iyo wax kala fara badan oo khayraad ah adkaarti suurada quraanka iyo saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam markaas oo sheekayna وبالله التوفيق السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.